السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawanaysaan. Qodobada barnaamijkan idinku wahayo waxa kamid ah Iran oo shuruudo cusub ku soo rogaysa marin biyoodka Hormuz. Awal waxay ahayd maraakiibta, laakiin hadda waxay doonaysaa inay canshuur ka qaado keebalada ama fiilooyinka internetka ee daadsan gunta hoose ee badda Hormuz. haddaba arrintan oo walaac fara badan ku abuuri doonta shirkadaha caalamka ee internetka ayaa iyana barnaamijka ku faahfaahin doona. waxaa sidoo kale barnaamijkeeda kugu haynaa ciidanka ilaalada kacaanka Iran oo sheegay inay fashiliyeen isku day Mareykanka iyo Israa'iil ay hub ku doonayeen inay ku soo geliyaan gudaha waddanka Iran. iyo Ciraaq oo sheegtay inay ka codsatay Sacuudiga inay baaritaan wadajir ku wada sameeyaan dadka weerarka ku qaaday ama cidda weerartay Sacuudiga ee u isticmaashay diyaaradaha droonka. haddaba shakigu halkee buu saaran yahay? tafaasiil ku saabsan arrinka iyana wararkii ugu dambeeyaan idinkaga haya. qodobadaas ayaynu barnaamijkeena labaad ku soo qaadanaynaa intaan ku jirno wixii warar ay soo kordhana waan idinla. haddaba barnaamijka waxaynu ku soo qaadan doonaa wararkii ugu waaweynaa ee soo dhacay tan iyo intaynu kala maqnayn. waxaynu ugu horreyn ku bilaabaynaa marin biyoodka Hormuz. haddaba marin biyoodka Hormuz ayaa waxaa ka soo baxay warar waaweyn saacadihii lasoo dhaafay. Iran waxay sheegtay inay ka shaqaynayso sidii maraakiibta halkaa ku go'doonsan oo 1500 oo markab ay ku sheegtay Iran sidii loo fasaxi lahaa, laakiin loo dejiyay shuruuc iyo nidaam inay maraan. waa kuwa aan cadowga ahayn in tartiib loo gudbiyo, nin walba cashuurta iska bixiyo, wixii khidmada laga rabo wixii oo dhan shuruudaha buuxiyo, meelaan mar la dhihin inuusan isku marin, uu awaamiirta ciidanka ilaalada kacaanka qaato. nimankii Iraaniyiinta waxay kaloo maanta soo saareen war kale oo ku saabsan fiilooyinka ama keebalada badda hoosteeda la mariyo ee internetka xawaaraha badan qaada halkaa uu maro. shirkada waaweyn keebaladoodu halkaa maraan. hadda ka hor barnaamijka ka sameeyay waa ogtiin. waxay taagan tahay dhulkaan annagaa iskale, baddaan annagaa iskale, keebaladan ciddii gudbisanaysa meesha iskale waa inay lacag bixisaa, waa in lacag la dhiibo, haddii kale waa jaraynaa. adduunkiyaa kala xirmaayo, carabta iyo yurub iyo afrika iyo kulli wax iskala maraa male. waa la yaabay. marka maxay ku soo beegaysaa? fiiri, warkan wuxuu ku soo beegmayaa xilli Mareykanka jawaabtiisii Pakistan loogu sii dhiibay. wadahadalku waa ogolnahay, waa kaas haddaa imaanaysa imaw. halkanna laakiin lagama gorgortamayo waay, isku maraa lasoo beegay. fiiri, warqadii hore Mareykanka u dhiibay barnaamijka hore adii kugu sheegay, tanna marka sheekadana lagu soo aadiyay. macnaha Hormuz ma ka gorgortamayno, wada hadal kama galayno, waa meesha annaga maamulayna, saan rabnay oo u shaqaysanayna. sheekada waalida marka soo baxay. haddaba markaan idin tuso wararkii ugu dambeeyay arrinkan laga qoray. telefishinka waddanka Iran ayaa goordhow sheegay 1500 oo markab inay ku sugan yihiin marin biyoodka Hormuz, kuwaasoo sugaya in ay helaan fasax ay halkaa ku gudbaan. 1500 oo markab ayaa la sheegay inay halkaa ku sugan yihiin oo ay sugayaan in ay markaa idamka ay helaan ciidanka ilaalada kacaanka Iran si loogu ogolaado halkaa inay ka gudbaan. haddaba wararka kale xiisaha leh ee soo kordhay waxaa ka mid ah wakaaladda wararka ee Faris ayaa iyaduna waxay sheegaysaa in Iran ay xaq u leedahay inay ku soo rogto ilaalo iyo weliba inay ka qaado canshuur keebalada internetka ee maraya badda hoosteeda. sheekada marka ma ujeedaa keebal walaa markab walaa wixii meesha maraya adeer lacagaan ka rabnayne, lacag la-aan wax la yidhaahdo maba jiraan. marka Ameerikaankii isagay u taallaa, Trump iyo kooxdiisii waa la sugayaa. tii hore jawaabteediiyaa u taalla, tanna inay ka soo jawaabaan. marka xaal halkaas ayuu marayaa la leeyahay. waaya qodobka halkaasee kaga gudbaynaa. wararka kale ee soo kordhay waxaa ka mid ah
ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan waxay sheegeen qorshe hub lagu soo gelin lahaa qaybo ka mid ah gobolada dalka Iiraan oo ay wadeen Mareykanka iyo Israa'iil inay fashiliyeen hubkiina ay qaateen kooxihii hubka waxa ka shaqeynayna inay joogaan Kurdistaan meesha la leeyahay Ciraaq oo kooxo Kurdiyiina loo maleynaya oo Iiraan maartay ku kacsan kooxdaas marka meeshooda iyagana aan ugu tagaynaa dheen annagta kaga soo saarayna marka waxay yiraahdeen wadanka Iiraan oo dhan gacanteenu ku jira hadaa u maleynaysaan ila wax walba iska soo gelin kartaan adikeedii taala marka hadda tafaasiisha hubka la qabtay iyo hubkan iyo waxa kan iyo wali warar badan laga ma soo saarin laakiin aanad tuso Al Jazeera oo goordhow warbixin kooban ka qortay waxa leedahay ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan waxay yiraahdeen waxaynu bartilmaameedsanay kooxo markaa la shaqaysanayay Mareykanka iyo Israa'iil haddaba ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan waxay sheegeen kooxaas la shaqaysanayay Mareykanka iyo Israa'iil gobolka la yiraahdo Kurdistaan ee ku yaala galbeedka Iiraan in ay markaa ku sugnaayeen meel ku dhow xuduudda Ciraaq waxaana wakaalada wararku ay sheegaysaa in kooxahaasi ay markaa ka shaqaynayeen sidii ay hub tahriiba oo shixnada waaweyn ay u soo gudbin lahaayeen iyo rasaas dhanka Iiraan iyadoo hubkaana laga keenayo sida la sheegay dhanka Mareykanka uu ka imaanayo marka nimankaasu dee waa lala wareegay wixii nimankiina meesha ka yimaadeen xuduudka dhinaca Ciraaq inay ka yimaadeen Kurdistaan meelahaas dhan wixii oo dhan la sheegay marka waxa la yiraahdaa ka warqabnaa mana gaadi kartaan manana nasiri kartaan marka hawsha iyaduna halkaas ay maraysaa wararka kale ee soo kordhay waxa kamid ah war cajiib ah runtii markii la tafsiirinayay oo dadka falanqaynaya ayaan dhageysanayay waxay leeyihiin dadka khubarada ah dawladda Ciraaq markii xalay saqdhexe ayaa Sacuudiga sheegeen 3 diyaaradood oo drone Ciraaq oo laga soo riday inay soo weerartay dawladda Ciraaq marka waxay la xiriirtay jabhadaha nimanka dawladda Iiraan meesha jooga waxay raadaan shaqo ku maleyn wax diyaarada oo aan Sacuudi ku ridnay ma jirteen dawladii iyaduna way soo ogtaa wax diyaarada ma ridin Sacuudiguna wuxuu leeyahay raadaarkeena wuxuu noo sheegayaa diyaaraduhu inay ka soo baxeen Ciraaq marka nin khabiira oo militariga aad uga faalooda ayaa la weydiiyay generaal wuxuu yiri maalmihii la soo dhaafay waxa marbal la soo kashifayay saldhig qarsoodiga Israa'iil ay ku leedahay Ciraaq dhulka Sahara saldhig qarsoodiga Ciraaq ay maartay Israa'iil ka samaysatay Ciraaq oo maartay qarsoodiga laba saldhiga hadda la mara oo la soo kashifay deegaan la yiraahdo Najaf oo dhanka Suuriya u dhow waxaana sheegay waa meelihii Mareykanka uu joogay isaga inuu saldhigyada iyo waxa ka leeyahay uu Daacish kula dagaalama iska dhigay ilaa meel Israa'iil ay ka adeeganaysaa marka hadda wuxuu leeyahay maadaama kooxihii Ciraaqiyiintu ay diideen weerarka Sacuudiga lagu qaaday dawladda Ciraaqna ay arikaa diiday yaa weeraray marka ama waxa laga weeraray saldhigyada Mareykanka ama kuwa qarsoodiga Israa'iil ee Ciraaq ku yaal marka dawladda Ciraaq waxay taagan tahay annaga iyo Sacuudigu aan ka wada shaqayno baaritaan rasmi ah ku sameeyno meesha ay ka yimaadeen raadaarku Ciraaq kaliya muu sheegaa meel ma soo sheegay magaalada way ka soo baxeen wixii oo dhan hadda marka dawladda Ciraaq waxay taagan tahay annaga iyo waa iswarsanay iyo kooxaheena annagu shaqo ku baliin maadaama aad tirahdeen Ciraaq laga soo ridayna diyaaradeena waa idin kala shaqaynayna bal annaga iyo idinka Sacuudi hadana ka wada shaqayn shirkadii marka waa soo kululaatay haddaba marka aan tuso warbixin Al Jazeera ay ka qortay waxay leedahay Ciraaq waxay sheegtay inay ka walaacsan tahay warbixinada sheegaya in la bartilmaameedsaday Sacuudiga oo waliba laga weeraray dhulka Ciraaq in laga weeraray haddaba warbixintan oo sii socotay waxa leeyahay wasaaradda arrimaha dibadda Ciraaq walaaceeda ballaaran ayay muujisay arrinka ku saabsan oo waliba ay sheegeen in lagu beegsaday warshadaha Sacuudiga oo la bartilmaameedsaday 3 diyaaradood oo drone oo la sheegay inay ka yimaadeen dhanka Ciraaq dawladdu waxay sheegtay inay iyadu aysan arrinka waxba kala socon waxayna ka codsatay Sacuudiga in ay arrinka si wada jira taxqiiq ugu sameeyaan ama baaritaan dhab ah ugu sameeyaan si wada jirana loo baaro meesha ay waxa kan ka yimaadeen marka
sheekadaasu iyaduna shaki weyn ayaa halkaa ku jira leeyahay meeshaasu marka wax badan ka qasan qadar xayeysiisa kadib wixii warar ay soo kordhay intaanu barnaamijka ku jirnay ayaanu idin la wadaagi doonaa kulanti wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeena qaybihii ugu dambeeyay waxaanu ku soo qaadanaa wixii akhbaarada soo kordhay intaynu kala maqneen haddaba war degdeg ayaa hadda Al Jazeera ku qoran waxa la leeyahay wargeeska leeyahay Axios ee ka soo baxa dalka Mareykanka wuxuu sheegay Trump wuxuu daraasad ku sameynayaa sidii dagaalka dib loogu bilaabi lahaa Iran sababtu maxay tahay aqalka cad ayaa isaguna wuxuu sheegay hindisahii Iran ay soo dirtay ma ahan mid heshiis lagu gaari karo macnaha ma ku qanacsana Mareykanka qaabka hindisihii saakay waa loo gudbiyay lahaa oo laga warsugayo waay hadda marka waxay leeyihiin Mareykanku kuma qanacsana oo nimanka heshiis ma rabaan u leeyahay Trump marka hadda wuxuu ka fakarayaa daraasad ku sameynaya sidii dagaalka loogu laaban lahaa marka hawshaasu wararkaas ayaa soo kordhay hadda saaran warbaahinta wixii kale oo akhbaarada soo kordha barnaamijyada dambe ayaan idin kula socodsiin doonaa asxaabay meel kastoo aad joogtaan like gareey oo share gareey barnaamijka haddaad cusub tahay subscribe ka iloobi YouTube-ka Facebook-ga follow gareey inta aan mar kale barnaamij kale ku kulmayno haddii aan la idmo nabadgelyo